بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba ay joogto salaamaya. Waxa waaye horta mar walba waxa isdhaca barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talentigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaa kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darnay ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qulubta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadaalid dad ay ka soo wada jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoon aan u lahayn waxbana isa naga dhaxeenin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweyn inay wax isku maleey jiro kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u maleey jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska midadkac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleey mana maleenayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadka uu sheeganayo dad wax cishto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kiga hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqayo oo Ilaahay ma jirto maxaa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa aapa social media tahay maxaa la waa ka baqaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkay deeq darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is aamin aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay deeq darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacantu ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa content waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyo heer oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu soo diri jiray wax walba uu sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa waxaan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhac joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikri ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas ugu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda iyo xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahan ma fahamtay uu ugu soo qaldamay Djibouti uu ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan uu ka hadlay waxyaabaas uu ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaa ka eray wuxuu yiri show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saaray wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaynin oo waxban igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada ka mid ah anuu garow jooga wax soo wacay deeqdarajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu yiri nina bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa way wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku kuma sameyn karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari fade waa bariye ninkii markaan bariye waxa waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeqdarajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa soo gale intii ma ku ere waxa deeqdarajo ka soo tagay ilaa deeqdarajo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garow ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeqdarajo ku khayaan waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa ninkii maxaa la yiraahdaa hadda YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedana ay ugu jiraan waxa maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay ee Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay ee qofna ma bari jirin xanii igu jiray oo Soomaali isku barin wali igu jira waxa daciif nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii ana ka qabanayeen iyo ana la wadaag ana diray waxa dad u diray waxa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka message ani ninkaasi aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay siinay YouTube-kayga xaniyi marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla jooga deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Ahmed Rashid Allah ka hadlay oo Ahmed Rashid ka telefoon ka qaadnay deeq waxaan ku iray saaxiib adaaninkaas ninka la yiraahdo Ahmed Rashid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa hadeertaan adaaninkaas saas waxa la yiraahdaa iiga heelay waxna igama qaadi lahayn YouTube cusub aan aniga hadda sameystay YouTube-kaasna waxa uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo sharaftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed sharaftiisa uga baqaayo Ahmed Rashid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo galay qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeqdarajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-kaaga kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimada soo fariisa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaay ma lahan YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caagjuglaya qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sheekadan weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlaya dadku kula feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxaa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiisa ay u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa intaa lu idiin diraaya oo aniga xataa la idhaha intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameynayno dad haddana xagga jooga oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyi ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaaba aynan u dulqaadan karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idin sheega aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintana waxa ii keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aan tuso waxaa waaye meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yidhahdaa dad aan hadhown eed aniga tusa naga koraysaa oo dartiina wax walba nagu gaaraan leeyahy Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dhib zaa'ida fanaaniinta Soomaaliyeed aniga u hadlayo afka fanaaniinta ku hadlayo weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa'id naga heesato xaggan iyo maxaa la yidhahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yidhahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxaa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxaa waaye arrinka inaa ogaataan arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga daba harin cagta uu noo saaray haddana waxa aan ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xaniyiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas inaan ka hortaga damco waxaa isoo hor istaagayo أحمد رشيد waxaa isoo hor istaagay Axmed Rashiid ninka noogu yiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa hawada ka saarno oo naga soo weerarayo oo awood u yeesay deeq darajo oo ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xogga u wato asiga waxa basabeeyo xaniima qol meeshaas ugu jira dada waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qofku ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalinimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas faaq ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxaa waaye waxaa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil uu waxba ka aqoonin naragu uu waxba ka aqoonin heer uu waxba ka aqoonin waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Axmed Rashiid gacanta noo galiyay waxaa waa haddana uma jabin oo macnaha waxaa la oynaa aan la cishoona ma YouTube-keygii in macnaha gacanta uu ku heesto ama wali la xukum YouTube-keyga ana gacanta ku heesto xitaa deeq darajo gacanta kuma hayo akoontigeyga ana gacanta ku heesto YouTube-keyga ana gacanta ku heesto waxba ana gacanta ku heesto laakiin wali aga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxa way uu ka soo tagay noloshiisii wixii u socdo horumarkiisii meeshu joogo ka soo tagay waxa waa xayad kaajal ayaduna sidoo kale gabadha way ka soo tagtay waxa xamar ay ku sugan tahay oo uga soo daba tago waxa way dabadu hadal u qabtay wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyooyin ku saystay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhaweyta bixiyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolada madaxa looga haaya xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo ii furneed ma lahan wada kale aan sameeyaa in ninkaas tawaco aan bariyo oo video soo duubido aan video u soo duubo wada ahayn ma lahan markii tii ay dhacday isla subaxii qadar ay qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninka ilaa hadda uu daba taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagta oo noo saaran yahay oo na daba haayo waxa waaye anigana ma aan shaqsi u daba haayo waxa waaye ninka deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa la yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku aan isqaana laga yaabo dadku maxaa la yiraahdaa familiadooda ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa loo ogaayay meesha ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegto aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaga ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jeerteena ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim maahan qabyaaladu qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwoodo ma lahan dad loo maro ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya aan qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamay kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal ay iga tagay Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye